sidii dhageystayaal warkeena ku maqleyseen xeerilaanta gobolka Minnesota ayaa dambi ku soo oogtay saddexdii askari ee weheliya askariga cadaanka ahaa ee lagu eedeeyay inuu dilay George Floyd oo ahaa nin bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda. sidoo kale waxa kor loo qaaday ciqaabta dilka ee askarigaasi uu geystay George Floyd oo markii hore ku ekeyd heerka saddexaad haddana la geeyay heerka labaad. haddaba wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa go'aanka xeer ilaalinta waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Faalane oo ka howlgala gobolka Minnesota. sida aad sheegtay maanta waxa si rasmi ah eedayn u soo jeediyay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka oo ah Keith Ellison magaciisa la yiraahdo. waxa uu soo jeediyay eedo kala duwan. koowaad wuxuu si toos ah u eedeeyay oo uu ku soo oogay dil darajada labaad ah askarigii sawirada ama ajalada laga arkay isaga oo jilibka ku haya luqunta ninka madowga ah ama qoorta kaga haya ninkaasoo hadda ka hor degmada Hennepin ay ku eedeysay laba dambi oo kala duwan oo ah dil darajada saddexaad ah iyo dambiye dil ah ayaa waxa marka maanta uu garyaqaanka guud ama xeer ilaaliyaha guud ee gobolka uu ku soo daray dil darajada labaad ah. marka ninkaas labadii hore uu ku eedeysnaa iyo midkan maanta lagu eedeeyay saddex bay noqonayaan. marka waxa kale uu eedeeyay saddexdii askari ee la socotay kana qayb qaadatay ama goobjooga ka ahayd faldambiyeedka dilka ah oo iyagana lagu eedeeyay inay caawiyeen si toosana gacan ama lug u siiyay oo ugu lug lahaayeen dilka ninkan George Floyd. waa gartay marka eedahan iyo faldambiyeedyadan lagu soo oogay Derek Chauvin iyo nimankii kale ee kala qayb qaatay markii uu dhimanayay George Floyd waxaa dadka qaar laga yaabaa in aanay u kala cadayn farqiyada u dhaxeeya dil darajada heerka labaad iyo darajada saddexaad iyo dil aan wada ka ahayn. marka haddaad dhinaca sharciga faahfaahin iyo sharaxaad naga siiso waa maxay farqiga u dhaxeeya faldambiyadyadan heerarkooda kala duwan yihiin? waxaa laga eegaa sida caadiga ah laba arrimood ayaa laga eegaa marka darajada koowaad ama darajada labaad ama darajada saddexaad loo kala qaybinayo dilka. mid waxa weeye qofka ulakac ma aha dilku wax la soo qorsheeyay ma aha mise ma aha. waxa kaloo laga eegaa ciqaabta uu qofku mutaysanayo. marka dilka darajada labaad gobolka Minnesota sharcigiisa wuxuu keenaa xarig gaaraya 40 sano oo xarig ah ayuu keenaa. darajada saddexaadna wuxuu keenaa xarig keenaya 25 sano. dilkan kale isagu caadiga ah waa wax 10 sano iyo hareeraheeda awal. marka waxay ku kala duwan yihiin guud ahaan dilkan darajada labaad ah waxa inta badan lagu soo eedeeyaa dadka la aaminsan yahay inay faldambiye ulakac ah ay sameeyeen oo qudha qof uga jarayaan ama iyagoo ku hawlan faldambiyeed uu ka dhasho ay dhimasho ka dhalato. tan kale darajada saddexaad isaga qofku inuu niyeystay ama uu damacsanaa inuu qof dilo looma baahna oo qasab ma aha. waxa lagu eedeyn karaa qof ku kacay fal aad khatar u ah ama aan u aaba yeelin ficil aan dadka noloshooda u aaba yeelin oo sida tusaale ahaan qof dad badan xabad ku rido oo kale ama dad meel ku urursan gaari dhex mariyo oo kale isagoo si gaara ula jeedo inuu qof gaara dilo laakiin ficilkaa waxa la wada ogyahay inuu yahay ficil khatar ah oo keeni kara dhimasho. dilkaan ulakac ahayn waxa weeye manslaughter baa la yidhaahdaa oo waa wax qofku aanu ka fikirin laakiin dhimasho ay ka dhalatay. marka waa dil aad u fudud isagu sida waxa la mid ah gaari adoo wato kale qof ku dhaca mesela qofkaasi marka uu dhinto marka kaasoo kale wuxuu noqonayaa gaarigii qofkan accident baa dhacay accidentkii dhimasha ka dhacday inta badan wuxuu noqonayaa wax marka la yiraahdo dil aan ulakac ahayn. ciqaabtiisa way ka yartahay labada kale. waa gartay marka la eego marka Derek Chauvin oo ahaa ninkii luqunta jilibka kaga hayay George Floyd markii ay naftu ka baxaysay iyo saddexdii kale iyaga maanta la soo xiray maadaama iyagana lagu eedeeyay in ay ka qayb qaateen faldambiyeedka dilka keenay isagii saddexda kale ma isku ciqaab bay noqonayaan mise ciqaabtooda kala duwan?
isku ciqaab bay noqonayaan oo waxa weeye inaad ka caawiso qof dil darajada labaada ciqaabteedu waa 40 sano oo xariga marka waxay la mid tahay in qofka geystay oo kale wata ugu dambeyntii adoo soo koobaya kiiskan marka maxkamad la tago oo ay bilaabato dacwadda maxkamaddu ma u muuqdaa baad isleedahay mid xeer ilaalintu ay ku guulaysan karto waxaan oran karaa waa suurtagal inay kaga guulaystaan laakiin aad bay u adag tahay waa arrin aad iyo aad u adag dadku hadda waxa laga yaabaa inay isleeyihiin war cajaladiiba way muuqataa ninka inuu dilay raggu inay ninka u qabteen waxaasoo dhan way iska muuqataa maxaaba keenaya in lagu murmo ma lagu guulaysan mise laguma guulaysan karo xaqiiqduuse waxay tahay booliiska iyo hay-adaha ammaanka xeerar aad u ilaaliyaa jira awood fara badan u siiya inay xoog isticmaali karaan inay dadka xoog ku qaban karaan inay katiinadayn karaan inay dadka xataa xabadayn karaan marka xeerarkaasi aad bay u adkeeyaan in lagu helo dembi ama dadka xeerbeegto ay dembi ku helaan nimanka dadka booliiska ah Minnesota aad bay u yarayd muddo dheer waxa u horeeyay wiilkii Soomaaliga ahaa ee sanadkii hore kayskiisa lagu helay ayaa muddo dheer kadib lagu helay waxa weeye xaqiiqdu waxay tahay inkastoo eedayntu ay aad u culus tahay caddaymo fiican oo fara badanna la hayo looyarada markaan eego ay hadda iyagu qabsadeen iyo taariikhda noocaas ah oo ay aad u adag tahay in qof booliisa lagu helo arrintu aad bay u adag tahay laakiin waxaan haddana isleeyahay technology-ga maanta la hayo oo mataqaan kamaradaha iyo videoyada iyo cajaladaha ilaa hadda laga duubay arrintaas inay runtii iyo qalalaasaha ka dhashay inay runtii keenayso xeerbeegti kastoo la horgeeyo inay arrintan ku qanci doonto in meeshan fool xun oo dembi ah oo dil ah uu ka dhaco marka waxaan still aaminsanahay in lagu guulaysan doono dilka ama ha noqoto darajada labaad ama darajada saddexaad midkood weliba waxaan u badinayaa ugu yaraan darajada saddexaad in lagu heli doono askarigii jilibka luqunta ku hayay labada kalena way iska cad saddexda kalena way iska caddahay in ay runtii caawiyeen iyagana haddii isaga lagu helo iyagana way fududaanaysaa waxa kaloo suurtagala gabagabadii in mid ka midihii uu kuwa kale ku markhaati furo taasina ay kiiska sii adkayso oo ay xoog sii siiso taana waa wax la filaya maalmaha soo socda hadalkaasina waxa uu dambeeyey qareen cabdiwaaxid qalale oo ka howlgala gobolka Minnesota wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayuu u waramay